waxaan aad iyo aad uga xunnahay in ummadda reer waqooyi siyaasiyiinteedii iyo haldoorkeegii maalinba mid laga soo dhex hadlo oo marka ay wax ka dhiidhiyaan oo ay cadaalad darro ay arkaan oo ka dhiidhiyaan in laga soo dhex hadlo siyaasiyiintoodii iyo dhaqankoodii mahdi wuxuu dhisanayaa nidaam isaga u gaara oo hadhow kula shiraakoobo madaxweyne kasta oo yimaado si uu ummadaha reer waqooyi madaxa uga sii fadhiyo waxa halkaa ka dhacay ama ka socda waa kufsi loo geysanayo kuraasta beelaha waqooyi waxa la diidan yahay waxaanu qiraynaa oo la diidan yahay ummadaha halkan fadhiya ee waqooyi ka soo jeeda ee midnimada xamar u jooga waxa la doonayaa oo hadalkan iyo ficiladan ay sheegayaan war noqda oo dhulkiinii ku noqda idinma doonayne waxa maxamed xuseen rooble uu samaynayo oo ay ragga isaga ka hoos shaqaynaya ay samaynayaan isaguna uu ka aamusay oo una wax ka qabanayn waxay ka dhigan tahay midnimada iyo waxaan laga sheekaynayo ma doonayne dhulkiina ku noqda cidda wax kala gooynaysana waa cidda oo kala wada ummadaha reer waqooyi iyo koonfur sida inay ummaddu u ogaato ayaan rabnaa marka aan u soo daadago kuraastan la isku haysto ummaddu ku jahwareertay waxaan u bidhaaminayaa ilaahay hortii oon u caddaynayaa cidda iyagu ay la doonayaan ay ku soo baxaysa inay sii astaysan tahay oo la yaqaano haddaad doontaanna aan idiin tirin karo 15 kursi ee degan mid kastaba cidda lala doonayo marka nidaam ma aha doorasho ma aha waxa socda ee waa nidaam selection ah ama ninka la rabo in laga soo dhax saarto dadka waxa haddaba u fiicnaan lahayd hadday sidaa tahay ra'iisul wasaaruhu inuu warqad digreeta ah mid kasta ku magacaabo taasaa ka fadli badnayd dadkana ay kaga doogi lahaayeen waxaan lurkan iyo dhibkan ay qabaan waxa ka garab hadlayay Mahdi xalay niman iyagu is-og inay yihiin xildhibaano dhaartuna u dhiman tahay kuraastana loo boobay war haddii afartii caaqilada ahayd ee suldaanka guud raaci lahaa loo qoray qof gaara mar haddii 101 ergo loo qoray murashax gaara mar haddii la diiday 3-4 inay isa sharaxdo lagu soo koobo ninka iyagu ay wataan iyo waraabo u taag marka waxa jira inaanay doorasho ahayn cid kasta ayaa garan karta indhaha lagama qarsan karo waxa socda cidda ka shaqaynaysana waa cidda meel kasta lagu bayaaminayo ee carabka lagu dhufanayo waxa haddaba dhib ka dhacday reerihii ay ka soo jeedeen waxay u qaateen in reerkii duulaan lagu yahay war cidina habargidir duulaan kuma aha cidna ma caayayso laakiin 4-5 xubnood oo idinka tirsan ayaa gabood falla wado haddaad dad ehel tihiin qabta dadkii wax qaloocan baa jira ma aqbalayno ma yeelayno halkan aanu taagnaanaynaa wax kasta oo dhaco midiidin ma ogolin caburin ma ogolin boob iyo mataqaanaa in kuraastayada la kufsado ma ogolin halkaasaanu soo taagnaanaynaa waanu caddaynaynaa waanu ka dhiidhinaynaa cid kasta oo isku daydo waxaan hadalka uga baxayaa gabaygii Allah u naxariistee saahid qamaan wuxuu yiri rag waxaan ku maamuli aqaan ama ku maamuusi mase inaanu nahay oo talnimo meerto tahay oo waliba kaga miilacadahay miirsa diidaniye masalaha ninkan ii goglayn midig ma saaray ninka aniga iga maarmi kara uma muraad yeesho 3 magac alle xaajadan la ima marsiiyo aad iyo aad baad u mahadsantihiin